dhalinyarada iyo waxyaabaha ay mashquulka ku yihiin aaladahan tirada badan apps la yiraahdaa 10 app 20 app 30 app adi shaqo kale ma lihid miya marka marba meel ku jeesanaysa goorma tukanaysa goorma wax cunaysa goorma isnadiifinaysa qubaysanaysa suuli gelaysa goorma cadayn goorma shandaysanaysa goorma walaalaha kaayar u naxariisanaysa kuwa ka waaweyn iyo waalidka goorma xurmaynaysa aqribadaada goorma xiriirinaysa saaxiibada goorma waqti u helaysa goorma wax baranaysa diin iyo maadbi ilaahay subhanahu wa ta'ala xiriirka kala dhaxay goorma gudanaysa kam bulshada kala dhaxay goorma gudanaysa kam bi'ada kala dhaxay goorma gudanaysa laana faral ayn kaliya lama bartay faral kifaayana wujira qolof moosa halkaas ku dhacay inaa qaadido dustbinka ku sii ridida la raba haddaan marna Facebook ku jirtid marna email aadid mar WhatsApp aadid mar Viber aadid mar Instagram aadid goorma soo jeesanaysa dhalinyarada apps kan tirada badan waxay keeneen in xijaabkii ragga iyo dumarka ku kala jiray oo Ilaahay uu keenay oo meesha ka baxo fudaan laana khalwada islaamka aad buu uga dardaarmay waa adagtaa in rag iyo dumar ajnabi ay isku cidloobaan waa khatar heer waxa la gaaray dadkii hore saxaabada waxa ugu afadka dadka Arabiyiinta reemiga laana ma waxay ka baqayaan male waxayna aaminsan yihiin ninkan waa nabi Ilaahay soo diray salawaatullaahi rabbi wa salaam fariinu wada fariintay u rabaan inay bartaan dumarka iyo xishoon jireen iyo uqaasha iyo marka hatta su'aal adag ama laga xishooda la weydiinayo waa la marmarsiyoon jiray Ilaahay muxuu yiri inna Allah la yasta'minu al-haq Ilaahay xaq kama xishoodo wax kasta oo diintaada ku saabsan waa inaad weydiisid fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun xaliyay nabi allow dumaashiga ka waran markaas yiri dumaashigu waaba mowt asaga u sii daran meel marka gabadha ninkeeda la dhashay aysan ku cidloon karin nin kale oo ajnabi xagee jooga abihiis ha waysa kama jabiyo laakiin walaalkiis maya laana hadii ay kala dhintaan dumaaru leey laftigiisa guur imaanay waa geeya waysiduu ka jabe marba haduusan muhram noqon karin oo waysa jabiyo cidladii waa la daay Facebook ay yimid daahi meesha ka bixiyay wala sheekaysana maxay dhaantaa inaad qol ku wada jirtaan kaligiin ina qolkan yar kaligiin ku wada jirtaan ina hatta isu furataan kaamirada shaashada oo la isfiirsado la sheekaysto gabadha qoorteeda qaawanta adigana lugtaada ay qaawanta dan ilaahay dadka qaarkood haduusan ilaahay u kaalmaynin fidna la gelaya dalka aan joogno shalay ma admise saaki jorana akhrinay 300 oo kun oo dhalinyaro ah Nairobi kaliya cudurka HIV/AIDS la wareersan oo reekenya meeqa Soomaali ka ah ilaahay baa garanay meeqa muslimka ilaahay baa garanay laana Soomaalina waa joogtaa muslimna waa jooga waa cudur qofka uu ku dhaco haduusan ilaahay bixinin ay tahay qof toogasho lagu xukumay dawo kaalmaadka qaada ma ogay wax dambe oo qofkaas uu soo siyaadinayo male wax productivity oo dambe uu soo siyaadinayo male imma inuu ilaahay ka yaabo oo aqoonsado waxaan inay qadar yihiin dambiga waxa ku lahaado laana HIV/AIDS qof dambaaba kaliya kuma dhaco dhiiga dhacaamado isu dusa bay ku xiran tahay irbad qof kale lagu duraa ka qaadi kartaa meel dhaawac ka ahayd qof dhaawac dhiigiisu aad qaadi kartaa inaad dambi raadsatid bay ku iman kartaa adiga laftigaaga aad raadsatid bay ku iman kartaa waxay ku iman kartaa in kas lagu mishimo dad isguursado xalaal isku guursado aan isbaarin ba sidaas ku kala qaada ayagoon is ogeyn hatta inay qabaan aysan ka ahayn kaale isku daarta bay hatta iman kartaa laakiin hadii uusan taxaddar jirin waa imaanaya ويدان wuxuu ka mid yahay sida hadda culimada sayniska qaaraan muslimiinta ay ku doodaan inuu yahay cudur loogu talagalay oo ay reer galbeedku dajiyeen oo loogu talagalay in dunida soo koraysa lagu kala yaray kansar ilaa hadda daawo loo laayay TB-da maxay ku timid Germany inuu sameeyay kadibna ay fakatay bacteria fakatay TB waa dhalinyaro waxa la rabaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala nabiga wuxuu yiri salawaatullaahi rabbi wa salaam alayhi wa soo noqda aayadii nabiga wuxuu yiri hadii aysan ahayn tawxiidka iyo salatu rahimka waa xiriirinta qaraabada iyo sadaqada aad bixisaan haday ahayn ummatu Maxamed waxay galabsadeen gacanta loogu shubi lahaa xisaabta inta la isugu keen lahaa qiyaamada la islaama sugeen laakiin Ilaahay muxuu nagu deynaa subhanahu tawxiidka qaraabada aan xiriirino iyo sadaqada Soomaaliya hadda saddexaas ay ku noosho waa hore dhul gariir ka dhicila laana joorfalkii 28 sano ka hor bilowday toban laabkiisa hadda socda wax lagu dilay ma taqaanid in dheer garadka la leenaya
wadaniga la leynayaa wadaadka la leynayaa qof kasta oo bulshada u soo kici lahaa oo horumarkeeda ka shaqayn lahaa baa la leynaya yaa dilay ma dawladda ma mucaaradka ma arsenalba ma ajaanibba yaa yaqaan lama yaqaan